dalna waxay ka yaqaanaan xamar dowladnimona waxay u haystaan boob inay tahay dhul wasiirkiisa difaaca aan handaday waxaan aaminsanahay madaxweynaha fariinta soo dhiibay nin aniga handadaaya oo yahuud maatiina ka keenaa ileh see doorasho ula galaa oo hubkii iyo qarankana maamulo iyo ciidankii ifahamsiisa doorasho ula galaayo lacagta meeshaan lagu tamashleynayo maxaa sheekh maxamuud askale aniga asaga anagoo shiida meeshaan fadhi jirnay $6,000 isku darsan jirnay dowladdii Soomaaliya waxay noqotay family enterprise dowlad qoysay noqotay haddaad ka tagto iyo haddaad garoon diyaarad tagto iyo haddaad madaxtooye tagto iyo haddaad wasaarad tagto waa inaad martaa qof family haddii kale wax arki maysid waa xeerkii ugu xumaa maxaa xeerkii ugu xumaa ay noqonaysaa musuqa iyo eexda oo wax jiri laakiin waxaa cusub in la jahro in madaxweynuhu yiraahdo gabadheeda waa shaqaalaysan karaa wasiirka uu yiraahdo qabiilkii qofka qabiilkii meel geysan karaa wasiir kale oo soo istaago yiraahdo sadaqaan nagu leedihiin waxaan nagu leedihiin caafimaad iyo malaha mid kale oo soo istaago macnaheedu jaharka waa jaharka waqtiga macsida waxa ugu daran mid la jahro oo qofkii yiraahdo waxaan sameeyay alla macsida waa la dhuntaa ilaahna waa loo tooba keena maanta waxaa socda waa la jahar taasaa ka dhigaysa heerkii ugu xumeed dadka Soomaaliyeed ee hantidooda la boobay ee la barakiciyay ee la dhacay si nabada isaga celiya dawladda iska celi kartaa Soomaalidu hargeysa wax ka dhacay moogeen inta ganacsatada heshiisay dawladda la heshiisay sicir goosatay shacabku waa mudaharaadeen markii degdeg uga noqdeen haddaad awoodiina muujisaan oo hanjabaad in hajabaya aadan dhag u dhigin annagana waa sheegna waa in garab taaganahay horena waa inay garab taagnaa jirnay waa iska celi kartaan kaligii talis qofka daciifsan male hadduu musuq iyo iyo qaraabakiil wadane waa kasii tabar daran xaqa idinku ila jira madax badan oo adduunka ka carara xukunka Bangladesh ka carreen Sri Lanka ka carreen intaasoo dalay ka carreen waa haday dadka awoodooda inay awood leeyihiin ay aaminaan dadka Muqdisho waxa laga rabaa inay aaminaan inay awood leeyihiin oo iska celi karaan burcada iyo kuwa isku bahaystay inay dhiig meertaan dhiigooda ay jaqaan waxaan rabaa saddex arrin aan sheego annaga madasha haddaan nahay khadcas aan leenahay maxaa qadcas noo ah waxaad qadcas noo ah extension dokororsi maya cid aan ka yeelayna male doorashadan malaakuudka iskor saaran oo qoriga la isku haayo meesha u socota ma taqaaniin extension u socota 8 bilood ka bacdi xasan sheekho extension soo fadhiistay aan noo madlan laakiin annaga muxuu noo yahay qadcas uu noo yahay dastuur dalka lagu kala qaybinayo qayb kamani qoladan saaxiibada ay xukun joogto oo madaxweynaha weyn yahay dalna waxay ka yaqaanaan xamar dowladnimona waxay u haystaan boob inay tahay dhul kulama jirno madasha haddaan nahay kulama jirno midnimo Soomaaliyeed rabnaa Soomaali kala maqan isku raadiyaan rabnaa hantida la boobayo ee qaranka Soomaaliyeed ka soo horjeednaa dowladnimada loo haysto inay dhac iyo boob tahay yaan ka soo horjeednaa ka soo qaad anigu xisbiga madax u ahay madaxweynaha xisbiga madax u yahay lacagta meeshaan lagu tamashleynayo maxaa sheekh maxamuud askale dadka meeshaan la soo buuxiyay maalada hoolka GSB maalada GST lagu qabanayay maxaa sheekh maxamuud askale aniga asaga anagoo shiida meeshaan fadhi jirnay $6,000 isku darsan jirnay saa wax u qabanay yaasi lacagta xasan sheekh lacagta uma xasal ku damashleynaayay Soomaaliyan weydiiyay aniga asaga markii aan activity qabanayno $6,000 isku darsan jirnay midowga musharaxiinta duqa inta uu keen lacagtan yaa weydiiyay oo ku tamashay ma saa iska leh markay lacagta dadka u dhaxayso xisbiyada markii dhaqaalaha dalka u dhaxeeyo markii awoodda dalka u dhaxayso markuu garsoorka dalka u dhaxeeyo markuu amniga dalka u dhaxeeyo wasiirkiisa difaaca handaday annaga maxaan u haysanaa serious waxaan aaminsanahay madaxweynaha fariinta soo dhiibay nin aniga handadaaya oo yahuud maatiina ka keenaa ileh see doorasho ula galaa oo hubkii iyo qarankana maamulo iyo ciidankii ifahamsiisa doorasho ula galaayo waxaas marka waa iska sheeko arrinta dhulka faray ka baxday cudur faafay noqotay hadda maxaa saas ka dhigay dhulkii dawladdu waa la soo dhaafay hadda waxaa la wax ku yiraahdo ku fidsi madaxweynaha dhulku soo siinayo
haye gobolkaa tegaysaa waa kuu fidinayaan dad la yaqaano qoysas la yaqaano dad la yaqaano magac leh dhulkooda 30 sano 40 sano la yaqaano 50 sano ay leeyihiin yaa dhulkoodii lagu fidsanaya waxaa la barakiciyey dadkii danyarta ahaa askariga Soomaaliyeed $200 u qaataa xagoo degan yahay in la tahay ma guriga weyn oo xasha ku jiro ama wasiirada ay ku jiraan mise bulad buruufa ku socdaa qoyskiisa waa danyar ku nool dhul dawladda ay leedahay xaqo ugu leeyahay dawladda inay meel degaan askarigaas naftiisa huraaya ee difaaca ay siiso waa barakicisa dawladda yaa la naaxiyey siyaasi qaraabo ganacsade sargaalka dadka barakiciyey intaasaa la naaxiyey fat katisaa la yidhahdaa mukulaalaha cayilan in yar oo fat katis ah la soo saaray dalkii danyartiina looma nixin maxay keentay dhulkii inuu qiimo jabo hadda ogtiin haddii kaleba dhulka Soomaaliya wuxuu yahay stock exchange maaragtay New York iyo London iyo waas is wareegay dhulka Soomaaliya saas oo kale waay dadka intooda ba dhulkii lacagta gashtaan kii hore u gashtane dhulkii waa ka qiimo jabay kuwii lacagta ka cadaysto masaakiinta ahay lacagta laga qaatane dhulkii waa ka qiimo jabay maxaa kaloo dhacay waxaa dhintay spiritkii ama ruuxdii tartanka ganacsiga dhimatay sababtoo ah nin baa baxaya ama gabar baa baxaysa madaxweynaha dhul soo siinaya 5 milyan ka faa'iido dalkan adeegiisa wuxuu ku dhisnay private sector ganacsi gaar loo leeyahay oo tartan ku dhisan oo ku dhisnaa hadduu caafimaad yahay hadduu waxbarasho yahay hadduu jaamacad yahay hadduu oo ganacsiga diyaarada yahay telecommunication yahay bangi yahay private sector oo ku dhisnaa rajada aan lahayn intaasay ahayd adiga si u ganacsanay markii nin maalinta jiraya oo dhul 5 milyan 6 milyan hebel waxa uu leeyahay jaamacadii hebel la soo siiyay tarabuunka hebel la soo siiyay maxaan ku shaa waxa igu darnaa waxay ahayd MCH ku yaala wardhiigley oo kaligiis caruurta lagu nafaqay jiray xataa waa la jabsaday nin baa wuxuu ugu yiri bartaas controlka afgooye sandaqadii 2 qolo ku taalay oo canshuurta lagu qaadi jiray askartii inta la gaday ee askartii banaanka canshuurta ku qaada بلا جعرب حتى وفكوي سوق بلا جعرب حتى وفكوي